السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإدنا آذن وإذن كلاهد ليس هرجيسة عاصمة جمهورية الصوماليلاند. ما أنت وحى مركلة سوريجي وقتجي أرضية جامعة إدنا آذن امتحانات دي سنوية أهلك غادي. waxaan ku faraxsanahay in duxfadii saddexaad ee dhaqaatiirtu ay ka soo baxayaan labadii duxfadood ee hore ee soo baxay alxamdulillah tayadooda waa laga warhayaa qaar aqoonsi iyo tababaro ayaa dibadda loogu diray qaarna way shaqeeyaan halkan iyo jamhuuriyadda meeshii kale ay doonayaanba way ka shaqeeyaan alxamdulillah imtixaanaadka waxaa noo gelaya dhaqaatiirtii waxaa gelaya ardaydii ilkaha waxaa gelaya kalkaaliyaashii umulisooyinkii kuwii caafimaadka guud baranayay kuwii nafaqada baranayay kuwii shaybaarka dawyaqaanadii farmasiistka ahaa waxaa sanadkan soo biiray oo duxfadii ugu horeysay ay ka baxayso kuwii baranayay computerka IT-ga iyo dhaqaalaha waxaa ilaahay loogu mahadnaqaa waddankeena Somaliland horumarka aynu gaadhnay nabadda aynu haysano dadaalka aynu gacmaha iska wada qabsanay aynu halkaa ku soo gaadhnay aqoontu tayadeedu waa marka ardayguna dadaalo macallinkuna dadaalo sharcigii iyo manhajkii hogaaminayna ay jiraan ayaa guulaha aan sheegay lagu gaadhaa waa ilaahay mahadii ardayda qalin jabinaysa waan u duceynayaa hooyo ilaahay xoogooda xalaala in natiijo xalaala ilaahay halka ka siiyo oo aan qish iyo waxa lahayn jaamacadeeda waxa laga ma yaqaano marka ardayga qishka iyo waxa ku soo koray iyo nagu soo lugo in waayo kulay heshiin meena kaase laakiin si ardayga dadaalaya ee raba inuu wax barto oo si lillaahi wax u barto farsamo ku shaqeysan karo oo barto ka ayaanu gacmaha u furayna ilaahay baanu u mahadnaqaynaa Somaliland iyo horumarkeeda waynu ku faanaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in guulahaas uu horeba inoo siiyay inoogu sii wado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.